ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada gaar ahaan wasaaradda tacliinta sare oo ah in jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho iyo degmooyinka gobolada dalka qaarkood markaasi ibdaha loo laabi doono kuwa tayada wanaagsan aan lahayn kuwa tayada wanaagsan la markaasi aqoon kororsi la siin doono yani waxbarashada la sii laabi doono fikradda sidee u aragtaa ma halkaa ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare hadalkaas runtii hadal aad u wanaagsan weeye waa hadal haddii uu dhab noqdo wax badan ku soo kordhin karo weeye meel dhal noqon karo mid kale jaamacadahan hadda dalka ka dhismay ama waxbarashada guud ahaan yani runtii horta waa doorkoodii aqoon-yahanadii doorkooda way qaateen doorkii ay bulshada ay u qaban lahayn way u qabteen marka waxaa maqnaa doorka dawladda oo ah yani wixii inay maaragtay iyada ay kontaroosho ay tayayso ay fan ku bixiso tala ay siiso marka taasna waxay ahayd mid naga maqan gabi ahaan jaamacadaha dhan ka maqan oo waxbarashada dhan ka maqan bay ahayd dawladda waana looga fadhiyay marka maanta ay soo baraarugtay yani wax kale ma aan shaqadeeda un bay qabsanaysaa waana soo dhaweynaynaa ama inaga ka jaamacay waa soo dhaweynaynaa yani in shaqadeeda ay qabsato inaga ka jaamacad ahaan yani maaragtay alhilaal ahaan waxaan rajaynaynaa yani maaragtay inaan noqon doono dadka yani jaamacad safka hore على الأقل يعني أن نقول دون كوا معركتي لا توجيهنايو لكن وحلاكن إجت تراه يعني معركتي أن وزارة وزير كمان كل ترينا يا وإن يصير نقول اللعب لكع النقدان وحكل سن قوانين قوانين يقاعد كل سن أي نقدان أو معركة فسرات كلام بهنين أو قف كستوى مركي وآخريو يعني ما أرد وكقرن كرو إن النقطة بان رجينا يا مركا أن كل ترنا وزارة وزيرك لكن وسود ويننا وأنا وهم بليننا وحكى لما عن شقة اللي جربي صدق كان سنة أو صدق كمغنيت أو دولة اللي جربي بهذا قبسنا يعني وينكم هسين